أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جنالك أداونيسان والكرم أوفيشيال فضلا هداد نقو عصبتاي سبسكرايب هداد هورين ولا جوجتين لايك iyo share inta waxay inoo tahay dhiirigelin. maanta waxaan dhamaystiri doonaa qodobadii aan horay u soo qaadanay ee ahaa nabiga naxariistii nabadgelyo korkiisa ahaatee dabeecadihiisa markuu doono cunida bisinka ayuu ku bilaabi jiray, dhinaciisa ayuu ka cunayay, 3 farood ayuu ka cunayay. markuu cuntada dhammaysto wuxuu leefayay farihiisa 3 jeer, wax cunimayn ilaa gaajo badan ay ka qabato mooye. wixii uu helo oo cuno ah ayuu cuni jiray, cuntada caayimayn, waxaana u badnaa cuntadiisa timir iyo biyo. hilibka wuu jeclaa, wuxuuna dhihi jiray annahu yaziidu fi samci saamiciin, maqalka ayuu siyaadiyaa. wuxuu jeclaa timirta iyo cajwada la yidhaa, wuxuuna yidhi hiya min aljannati wa hiya min alsammi waasixri waqaayatan wa junnatan, sunta iyo sixirka ayay gaashaan u tahay. wuxuu kaloo yidhi aakhiru aطacaami akharuhu baraka, cuntada aakhirkeedu waa barako. ma cuni jirin tuunta, basasha iyo khudaarta. habeeno badan ayuu baryey intuu seexanin, isaga oo gaajaysan oo guryihiisa aanan wax laga karinin. wixii xeerada misena saxanka ka dhaca wuu qaadan jiray, wuxuuna yidhi man facalahu gufira lahu, ruuxiisaas sameeya waa loo dembi dhaafaa. markuu cuntada dhammaysto ilaahay ayuu ku xamdinayay, cuntada kadibna ma seexan jirin. wuxuuna yidhi adiibuu طacaamakum bidikri illaah walaa tanaamuu fatakhsuu quluubukum, ku dhalaaliya cuntada xusida ilaahay oo hala seexanina yaysan idinka qalalin quluubtuye. nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu ahaa mid caba caanaha iyo biyaha, mana qurqurin jirin ee wuu neefsan jiray. wuxuuna yidhi alkibaad ay wajcu lkabadi min alcabbi, beer xanuunka waxaa laga qaadaa qurqurinta. weelka dhexdiisa kuma neefsan jirin, inta badan isagoo fadhiyo ayuu cabi jiray. sharaabka wuxuu u jeclaa kii macaan ee qabow, sharaabka iyo cuntada kululna wuu nacbaa. wuxuuna yidhi qaboojiya cuntada, tii kulul baraka ma lehe. wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatuh.